asalka mushkilada oo ah dal muslim ah inta la qaybiyo ma loo samayn karaa laba maamul oo kala madax bannaan masaladaasaan caawis intaagi doona qaybta labaad habeen dambe noqon doontaa insha allahu tacaala ama fadhiga labaad waxaan kaga hadli doonaa almukhalafat walmakhatir alsharciya fi ictiraafi israa'iil mukhalafaadka shareecada ama khatarta ku jirta waxaa lagu sheegay ictiraafka israa'iil kan hore markaa wuxuu ku saabsan yahay mas'alada meesha asalka u ah ee ay sartu ka quruntay ee ay u dhimanayso taasoo ah sideedaba beled muslim ah ama dhulka muslimiinta ma bannaan tahay in inta la kala gooyo maamullo kala madax bannaan loo sameeyo mise shareecadeennu ma ogola hadalkaygaasi wuxuu u dhacayaa oo aan u jeedinaya oo uu u socdaa cid kasta oo arrimihiisa miisaanka shareecada ku miisaanta kitaabka alle sunnada nebiga sal alla alay wasalam iyo manhajkii saxaabada iyo salafka hadalkaygu wuxuu u dhacayaa ruux kasta oo diintiisa iyo aakhiradiisa ka hormarinaya waxa uu moodayo masaalix adduunyo hadalkaygu waxba u faa'iidayn maayo ruux hawaraac oo aan diintu xidhin oo allah yidhi iyo rasuulkiisaa yidhi iyo shareeca qabta aan u soo istaagin ama siyaasi ha ahaado ama wadaad ha ahaado ama oday ha noqdo ama dhalinyaro ha noqdo marba hadduusan ruuxu shareecada u soo istaagaynin iyo amarka rabbi iyo kitaabka alleh 100 aayadood haddaad akhrido iyo 100 xadiid haddaad akhrido kaasi ka dhaadhici maaya marka kuwaa kuma socdo hadalkaygu kuwaasi ducay u baahan yihiin ilaahay inuu soo hanuuniyo inta kadib waxaanan aada u sii danaynayni sidoo kale oonan muhiimad weyn u arkin markii kelimo la jeediyo ama wax laga hadlo inta badan radulficliga ka dhasha ee inta badan caadifada ku salaysan ama aragtida gaaban ee ku salaysan ama caytanka aflagaadada ama ruuxii xaqa sheego oo lala dagaalamo ama in la xidho ama in la dilo oo loola dagaalamo macnaha waxa uu sheegay taana muhiimad weyn ilama laha oo xaqa iyo xaqiiqada yaas waxay tahay dabeecaddeedu in dadka sheegaya laga soo bilaabo ambiyadii rususha in ay dhibaato kala kulmaan taasi marka wax cusub maaha iyaduna wax weyne lama aha allah tabaaraka watacaala culimada ballan buu ka qaaday ballantuu ka qaadayna waxay tahay inay xaq caddeeyaan duruufta waxay doonay ha ahaato waana midda keliya tee taariikhda muslimiintu ay diintooda ku badbaaday haddii ay culimmadu dabaysha raaci lahaayeen oo kolba mawjadaha socda ay fuuli lahaayeen oo madaxda iyo dariiqooyinka iyo madaahibta diinta yacni qalloocinay ay u qiil bixin lahaayeen oo ay fatwada la daba ordi lahaayeen diinteennu waa horay bedelmi lahay diin saafiyayana ma soo gaadheen laakiin waajibku waxa weeye sida ilaahay ballanta kaga qaaday culimmada inay xaq caddeeyaan wixii dhibu ku soo gaadhana inay ku sabraan nabigeenna moxameda sala allahu calayhi waalihi wasalam sida uu tilmaamaya xadiidka jaabir bnu cabdillaah oo uu soo saaray axmed iyo bazaari ibni xibbaan iyo bayhaqi sanad saxiix calaa sharti muslim nebigu sal alla alay wasalam beecadii baycatulcaqaba
saxaabadiisa uu la galay ballantii isagii ansaar maka ku dhex martay qodobadeedii waxaa ka mid ahaa wa an taquluu fi llah laa takhaafuuna fi llahi lawmata laa'im ilaahay diintiisa sheega xaqana u istaaga cid idin eedaynaysa ama idinla dagaalamaysana eeddiisa ha ka baqina ballan bay nebiga kula galeen sal alla alay wasalam cid idinla dagaalanta idin cayda idin aflagaadaysa idinku xadgudubta ha u abayeelina xaqa sheega ilaahay dartiina u sheega sidaasoo kaleetee sidaasi la mid ah cibaadat bnu saamit ayaa wuxuu ka warinayaa abu darin alghifaari radia allahu tacala canhuma abu dar baa wuxuu leeyahay khaliilkaygii wuxuu i amray 7 arrimood khaliilkiisa wuxuu ku wadaa nebiga sal alla alay wasalam 7 arrimood waxaa ka mid ah wa amaranii an aquula bilxaqi wain kaana muran wa amaranii an laa akhaafa fi llahi lawmata laa'im nebi maxamed wuxuu i amray oo uu iiga tegey inaan xaqa idhaahdoon sheego haba khadhaadhaadee waxaa kaloo uu khaliilkaygii iyo saaxiibkaygii nebi maxamed i amray inaanan alla dartii cid i eedaynaysa eeddiisa aan uga baqin marba hadduu xaqu yahay xaqa sheeg oo istaag ciddii ku eedaynaysa ciddii kulula dagaalamaysana ha u aabayeelin hana ka cabsanin xaqu haba khadhaadhaadee ballantaasuu nebigu la galay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ballantaasi marka waa ballanta culimmadoo dhan u taalla iyo dadka ummadda inteeda waxgaradka saa mar hadday tahay in marka loo istaago xaqiiqadaas ummadda la badbaadiyo diinteeda loo badbaadiyo adduunyadeedaba waa waajib intaa kadib mas'alada aan fadhigan kaga hadlayo ee aan ku tilmaamay inay mushkiladan hadda jirtaay ay u tahay gundhig u tahay meeshay sabtu ka quruntay ah oo ah asal ahaanba beledka muslimka ama dhulka muslimiinta marka shareecadeenna la fiiriyo ma bannaan tahay 2 dowladood oo kala madax bannaan ama 2 nidaam oo kala madax bannaan ama madax kala madax bannaan in loo sameeyo ma bannaan tahay mise ma bannaan masaladaasi waa masaladii maalmahanba socotay waxaan is idhi culimmada soomaaliyeed rag baa ka hadlay ilaa khayr ha siiyo inay ku filan tahay intii ay sheegeen mar baan is idhi haddana dad badanoo walaalaha ila soo xidhiidhay baa iga codsaday inaan masaladaasi dul istaago ogaan wixii ilaahay waafajiye ka idhaahdo marka la yidhaahdo beled muslim ama bilaadda muslimiinta kulligeed isku dar ma la qaybin karaa siyaasiyan 2 dowladoo kale madax bannaan ma loo kala samayn karaa madax kala duwan oo ishoos imaanin ma loo kala dooran karaa masaladaa markii la yidhaahdo ha laga hadlo culimmadu waxay u qaybiyaan 2 qaybood waana 2 noocan uga hadli doona waa mida beledka haddii bilaaddaasi ay isku dhowdahay oo macnaheedu wax weeyaan ay isgaadhi karto maamulkeedu isgaadhi karo gurmad ay isgaadhi karaan wax u dhaxeeya uusan jirin oo ay muxuu ahaay ayna aad u kala fogeyn taa waa xaaladda labaadi waa inay bilaadda muslimiintu aad u kala fog tahay oo maamulka ka jiraayay meel uusan meesha kala gaadhi karin oo uusan gurmad ku gaadhi karin oo inuu u sameeyo dad isaga matala xataa ayna suroobi karin oo ay dhulku aad u kala fog yahay xaaladda labaad waa xaaladdaas xaaladda hore oo innaga wadcigeenna ah soomaali ila dhulkan hadda aan ka hadlayno dhul kale fog ma ah waa hal dhul hal ummad baa ku wada nool
hal luqad bay leeyihiin hal diin bay wada leeyihiin waa isku wada jinsi dulku waa isu muuqdaa yani waxa weeye xaaladda iyada ah waxa ay ka qabto in laba nidaam oo kala madax bannaan loo sameeyo diintu ka qabto taasaan dul istaagi doona xaaladdan kaloo dhulku aad u kala fogaado wax yar baan ka tilmaamay fursado kale haddii ilaahay saamaxo inaan faahfaahin doono waa suurtagal laakiin maadaama hadda wadcigeenna ayna ku saabsanayn iyada dib baan isaga dhigi doonaa insha allahu tacaala wax yar baan ka tilmaami doona ayib haddaan taa bilowno markaa oo ah dhulka isku dhow ee muslimiintu leeyihiin ma loo samayn karaa ma la kala qaybin karaa madax kala bannaan dawlado kala madax bannaan ma loo samayn karaa jawaabtu waxa weeye maya shareecada ilaahay kuma bannaana daliilkeeduna waxa weeye kitaabka alle sunnada nebiga sal alla alay wasalam ijmaac iyo macquulka iyo qawaacidda shareecada intaasiba waxay ku tusayaan dhul muslim ah oo hal dawladii wada maamuli karto oo maamulkeedu wada gaadhi karo oo aan kala fogayn in aan la kala qaybin karin laba dawladood loo kala samayn karin laba nidaam loo kala samayn karin laba dawladood laba siyaasad kala yeelan karaynin inayna arrinkaasi bannaanayn ayay intaasuba daliil u yihin adillada haddii aan dul istaagno way badan yihiin laakiin qaybaan ka soo qaadan doona waxaan idhi daliilka koobaad waa qur-aanka ummadda muslimka wuxuu ugu yeedhay midnimada isku duubnaanta kelimadooda inay kulmiyaan tafaruqa iyo tashatudka iyo kala tagga iyo iskhilaafka iyo muranka iyo isku dhaca inay iska ilaaliyaan aayadaha macnaha ka hadlaya aad bay u tiro badan yihiin qur-aanka inta inoogu yeedhaysa midnimada iyo inta inaga reebaysa tafaraaruqa iyo kala tagga aayad kastoo macnaha ku imaanaysa waxaa soo gelaya kala tagga siyaasadda iyo dhulka muslimiinta in la qaybiyo iyo in dawlado kala duwan loo sameeyo oo aan shaqo isku lahayn aayadaha waxaa ka mid a lianna waxa weeye marka madax kala duwan dhulka loo sameeyo maxaa ka dhacaya waxaa dhacaya iskhilaaf baa dhacaya tafaruq baa dhacaya kala tag baa dhacaya inay cadowga isu loogaan baa dhacaya inuu midba midka kale garabkiisa ka baxaa dhacaya bal waxaa dhacaysa inayba isu soo kaxaystaan cadowgoodu isu soo kaxaystaan bal waxaaba dhacaysa inay dhulkii muslimiinta lumiyaan sidii andalus iyo dhulkii lahaa ka dhacay dhulkii muslimiinta marka midnimada siyaasiga ah iyo madaxa iyo maamulka iyo siyaasaddu inay muslimiintu ku midoobaan waa midda qur-aanku inoogu yeedhay nebiga sal alla alay wasalam axaadiistiisana ku imaanaysa haddii taa la waayo maxaa dhacaya arrintaasaa imaanaysa marka waana dul istaagi doonaa culimmada aqwaashooda waxaa ka mid a aayadaha macnaha tilmaamaya aayadda qur-aankii rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala walaa takunuu kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaءahum اlbayinaatu waulaa'ika lahum cadaabun cadiim ha noqonina sida kuwii kala tegay oo kale oo iskhilaafay markay aayadihii cadcaddaa u yimaadeen kadib kuwaasi cadaab weyn bay leeyihiin bu alla tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid a qowlu llahi tabaaraka wa tacaala wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay xadhiggiisa qabsada idinkoo idil hana kala tegina kala tagaasi wuxuu noqon karaa mid madhabi ah wuxuu noqon karaa mid caqiide ah wuxuu noqon karaa mid siyaasadeed wuxuu noqon karaa mid qabiileed wuxuu noqon karaa mid kooxeed kulli wuu soo gelaya walaa tafaraquu ha kala tegina waxaa ka mid a qowlu llahi tabaaraka wa tacaala walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ha murminoo ha iskhilaafina oo aad fashilantaan awooddiinnuna ay tagto yacni hadday muslimiintu iskhilaafaan toos waxaa ka dhalanaysa in awooddoodu dhimato
laana wada jirkoodii iyo wada socodkooda bay awoodoodu ku jirtaa goortay burburaan oo iskhilaafaan oo dawlado kala noqdaan oo kooxo kala noqdaan awoodoodii baa daciifaysa watadhab riihukum haddii quwadii awoodu daciiftana waxay noqonayaan luqmad si fudud cadowga u liqo iyagii dhulalkoodaba si fiican loo faa'iideysto aayaadka iyo aayaad kale oo aad u fara badan waxay tilmaamayaan muslimiinta midnimadooda iyo kelimadooda in la ururiyo amarkoodana hal muxuu ahay yani qiyaada siyaasiya oo mid ah iyo hal madaxa yeeshaan ayay aayaadkaasi tilmaamayaan haddii ay sidaan tilmaannayba ay madax kala gedisan timaado markaasi waxaa imaanaya in la murmo oo la iskhilaafo la kala tago aayaduhuna macnahaasay tilmaamayaan in muxuu ahayey kuwana way reebayaan kuwana wayna amrayaan yaa sidaa u daliishaday aayadaha culimada muslimiinta u daliishaday alimaam ibn xasmi calayh raxmatullah wuxuu leeyahay ibn xasmi waa qarnigii afraad iyo qarnigii shanaad waa 450kii waan malaynay inuu ahaa dhimashadiisa wuxuu leeyahay alimaam abu maxamed ibn xasmi wuxuu leeyahay walaa budda ida ikhtalafa alqaa'ilaani cala qawlayni mutanaafiyayn min an yakuna axaduhuma xaqan walaakharu khata'an wuxuu ka soo hadlay mas'alada waan u tegi doonaa wuxuu soo guuriyey inaan dhulka muslimiinta laba imaam iyo laba madaxweyne aan loo samayn karin in ijmaac tahay dhulku markuu kala fogaado bay qaar waxay yidhaahdeen markaasi laga maarmi maayo in laba maamul loo kala sameeyo qolihii marka qabay fikirkaa dambe ayuu wuxuu soo guurinayay dooddood waxay daliishadeen oo adille ka dhigteen kadibna ayagiibuu radinaya wuxuu yidhi marka walaa budda ida ikhtalafa alqaa'ilaan waxaa laga maarmaan labada ruuxee hadlaya hadday iskhilaafaan oo laba hadal oo iska soo horjeeda ay isku khilaafaan waxaa laga maarmaana labada hadal midna waa khalad midna waa sax labaduba sax ma wada noqon karaa waidaa dalika kadalika hadduu arrinku sidaa yahay فواجب رد ما تنازعوا فيه إلى ما افترض الله عز وجل الرد إليه عند التنازع هذا مركز سيداس تهي والله بعض الرجل اسكسو هرشيدا ألا من يشروع عليه يدو أين نعلن ومحويل ألا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هداد مرنتان أو اسقبستان أو أرين اسكو قبستان إلهي وعليه وكتاب رسول كيس وعليه ونبي حديث صلى الله عليه وسلم مركو دنتكدي هداد الله يمان انت آخر ويستي مركو حانو عليني نابو دمورا كمسألة كساب سني كتابك إلهي سنة النبي أنو عليني فنظرنا في ذلك أرنك وافيرنا مركو فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال مركزا وحان هلون شرعة كهلا إنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لإمامين فاقتلوا الآخر منهما لبنين ومدحة هدي حل لو وذا ديبو ومسؤولية لو وذا ديبو ولبنين دولكي مسلمين توا ولبنين مدح لغا ديبو كهورا مدحة كالدنبي قدال كي بالنبي وحر الدلاء حديث كاس النبي قهر دواكاي النبي وحاكروا الله يبي وقال تعالى الله وحيلي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الله نوحيلي هنقونين كوا كالتجي اسخلافي وقال تعالى الله وحيلي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وآيات هذا أخير مركز وحيلي فحرم الله عز وجل التفرق والتنازع الله وحو حرمي وديني كالتجا يمرنك وإذا كان إمامان هل كاوي ماشى نصعد وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم فوجد التنازع ووقعت المعصية لله تبارك وتعالى وقلنا ما لا يحل لنا وحيري هدين لبا إمام لبني نو مدحة مركا لسميست كلا تجي وضحي بمركا كلا تجي إلهي كدقى يلي ولا تفرقوا لبني نو مدحة شاواب دحي كلا تجي يمرنكي ولا هلا معصيتي يخلت كينا وكل حنا يقول
haddaan nidhaahno way bannaan tahay arrinkaasina waxaan xalaal ahayn oo shareecadu bannaynin baynu ku hadallay marka aayadaha qur'aankii siday u diidayaan qabiil in laysu khilaafo koox laysugu khilaafo ayaa waxay diidayaan inay muslimiintu u qaybsamaan maxay maamullo kala duwan iyo dawlado kala madax bannaan ayib aayaadkaasi waa qayb ka mida nusuusta qur'aanka ee tilmaamayo arrintaasi inaysan bannaanayn adiga aayad walba qur'aanka ku jirta oo midnimo ina amraysa iyo aayad kastoo qur'aanka ku jirto inooga digaysa tafarruqa ka siyaasigina waa soo gelaya ma aha qabiil kaliya iyo koox iskhilaaftay maaha midka ka darani waa khilaafka siyaasiga ee lama dhul muslimiinta la kala gooyo loo samaynayo madax kala duwan way soo gelayaan aayaadkaas oo dhan waana badan yihiin quraankaas axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam hadaan u dhiman axaadiistan buu nabigu ku tilmaamay si guud ayadana axaadiista faraha badan ee ummadda midnimada amraysa tafaraaruq iyo kala tagana ka reebaysa oo axaadiis aad u far badan ah ayaduna halkaa way ku imaanaysaa laakiin si gooniya nabigu sallallahu alayhi wasallam xilka iyo mas'uuliyadu axaadiis gooniya ku tilmaamay inaan la isku khilaafin oo muslimiintu madax kaliya yeeshaan waxaa ka mid ah xadiidka abu xaazim wuxuu leeyahay abu hurayra waxaan la fadhiistay 5 sano waa saxaabada nabiga ka mid ah markaas waxaan maqlay buu isagoo nabiga ka sheegay sallallahu alayhi wasallam oo rasuulku wuxuu ka sheegay inuu yiri kaanat banu israa'iila tasuusuhum al-anbiya reer bani israa'iil waxa hogaamin jiray oo maamuli jiray anbiyadooda kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun markastoo nabi dhinto nabi kale ka dambeeyay jiray oo la soo dirshay nabigaas markuu hogaamin jiray nabiyada u kala dambeeyay wa innahu la nabiyya ba'di rasuulku wuxuu yiri aniga gadaashayda nabi ma jiro nabi leedin soo diri doono gadaashay ma jiro wa sayakunu khulafaa'u fayakthurun madax baa jiri doona markaasay badan doonaan muslimiinta madax baa imaan doona xilli baa imaan doona markaasay badan doonaanoo meel midba qayb buu goosan doonaa qaybta midba maxka qaybta midba madax baa imaan doonta noocaas oo badan qaalu waxay fama taamuruna rasuulka ilaahay markay madaxdu badato maxaan amraysa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fu bi bay'ati al-awwali fal-awwali ka u horeeya ee aad doorataan xilka idin haya heshiiskiisa ilaaliya hadana ka midka ku xiga ilaaliya fa inna allaha yani u'tuuhum haqqahum fa inna allaha sa'iluhum amma istar'aw yani hal midun oo ka u horeeya xilkiisa aad doorateen idin haya muslimiinta oo dhan matalay ama qutriga matalay kaas uun ka dambeeyo kan kale ee meesha yimid ka isaga sida iimaan doonta nabigu sallallahu alayhi wasallam ka soo qaadina macnaha laga wadaa kadibna xaqooda siiya waxay idin weydiistaana ilaahay baa weydiin doona idinka iyaga mas'uuliyadu saaray marka wax weeyaan say u kala horeeyaan xaqooda oofiya waxa sharxi doona xadiidka حديث كلا شرح دوت الإمام النووي عليه رحمة الله في شرح مسلم وحوله ومعنى هذا الحديث وحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة ساسوي معنا إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة هذه لو مدحها لك الدنبيسية كهراء أيام مدحنا مديسية أهدي بلنك صحيح دور شيء صح يجب الوفاء به ka hore doorateene hore ka ilaaliya oo dhowra oo fuliya طيب ككلك قلبنا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها كان كلك كدبي قيب يسقون قوسنا هي أما مال يسقون إسكح حالنا هي كا إسقى والنبي صلى الله عليه وسلم هي إمام النووي إسقى بيعة سوى باطل إلا أوفينا وحرام ويحرم عليه طلبها إنه رادينا إسقنا حرام بيكوته وسواء عقدوا للثاني عالمين بقدر بعقد الأول جاهلين أما كي هوري إلا دورتها أوغادين كان دم بقولة دورنس أما ينكور هاين إنه جاهلين هكا هذا كي هوري مضحى كان دم بوحبك متشرو طيب وسواء كان في بلدين أو بلد
أما لما ودن هكا لتشوغين أما هل ودن هتشوغين أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره يعني أما بلاد كلا دوان هتشوغين أما هل بلد هو ذا تشوغين هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء سيدا سوى سيدا صحدا هو أي مذهب الشافعي أصحاب تيسا علماء بدن كود بأي قبا الإمام ابن حجر بيسوون حديث كشرح يساسه وكالسي كله بيسوون ليه حديث كالله بعد هو حديث عرفجة صحابي عرفجة اللي يراهدو حديث كان صحيح مسلم بكويا له النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على أمتي وهم مجتمعون يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان عدي أمد إذا كبح ذا أمد إذا كبح ويعني كركي إذا كبح أيقو أو وذا الصعود أو وذا الشراء ودون إنه أمد كالجيو كلا قاضو كاسي ديلبو النبي صلى الله عليه وسلم نينكو دوني هالنقضو كائنا من كان يعني عدي دون هالنقض شيخ هالنقض سياسي هالنقض وحدوني هالنقض محلو الدليا لأنه وحويان شركيسة إن للديلو إن للداية الشركة كرنا يا كبضة إنك استوى علماء قاركوا إليه فاقتلوه وحلقوا وضا وقتل معنويه عسيلة لقوا وضا طورة لكن ظاهر كحديثك ما هي وحوي هلقة تخلصوه طيب حديث كسد حادي وحديث أبي سعيد الخدري رسول كوحر صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما لما مضحها الدين لو وضا الدورتو متكدم بديل أبو النبي صلى الله عليه وسلم طيب حديث كسدحات أفراد باني لو حديث عبد الله بن عمرو بن عاص حديث كاس السير مسلم باوري النبي صلى الله عليه وسلم ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع روحي إمام دورته وبلن يبيع لك يا أو هشيسكي كعنت هشيسكي هذه السيا قلبي سنة مريه سيا هأطيع إنتو كركر يعني وحوي أنت أودي ساها كدم بيو يوسنكب بحنو خلافه فإن جاء آخر ينازعه هذون نينكلو مدح يمادو كوهايست كرسي oo isaguna kursi doon ah nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fadribu unuq al-akhar ka kadaba yimid kursi doon ka dilay rasuulku sallallahu alayhi wasallam طيب nusuustaas maxay tilmaamaysaa adiladaas waxay tilmaamaysaa muslimiinta dhulkooda inaan laga ogolayn laba maamul iyo laba dawladood oo isgarab socda oo ishoos imaanin dhulkii muslimiinta qaybsada mid uu qayb ka taliyo midna qaybta kale ka taliyo hal ruuxba muslimiinta madax u ah hal dawladna waa leeyihiin dhulkooduna waa mid saasa nabiga sallallahu alayhi wasallam uu qeexay al-imam al-qurtubi alayhi rahmatullah markuu soo arooriyay ahadiista aan sheegnay abu sa'id al-khudri hadithkiisa abdullah ibn amr ibn aas arfaja saddexda markuu keenay wuxuu yiri وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين ودليل كأغط صمبضا أحاديث تاس إن الأقولين لمننا مدح إلا استاجيو لولك مسلمين تلقوا استاجيو لقوا دورت ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن والزوال النعم هاي الأرنقاس وحكينا يا المنافق نمو وحي كينا يسا إن الاسخلافه waxay keenaysaa in la kala tago waxay keenaysaa fitan inay dhulka muslimiinta ka dhacaan waxay keenaysaa nicmooyinka inay zuulaan oo nabadgeliyada iyo wanaagga midnimadu meesha ka baxdo waa tan in haysato aynuha sooma yani waxa weeye inta hal dawlad ay meesha ka talinayso oo hal jiho ay go'aanka leedahay muslimiinta taladooda u urursan tahay dhulkii halka dawladaha markuu duwaylaad noqdo taladiina kala fogaatay muslimiintiina daciife ayagiina way isku mashquulayaan ayaga marka dambe islayn doona cadawgooda u gacan gali doonaan wayna isu kaalmaysan doonaan cadawgooda waatan maanta in haysato waa dhulka markii hal dawladi ka talinayso dawlad dagaalamaysa ma jirto qabaa'il yar oo meelahaas isku ereeriyanahay way jiraan laakiin dawlad la dagaalamaysa ma jirto هذا مركي صوب هذا لاندس مركي صوب حين يا لاندس بمدة كلا يدون زين الله دجالنا أورتا اللي سوق شراء وامدا علماء التلمام يا زمات مر بحدو خلاف سياسي يقول كل قيب سدوا يمادو
oo siyaasiyiin kala madax bannaan iyo hoggaan siyaasadeed oo kala madax bannaan dhulka muslimiinta loo sameeyo waxaad sugtaayay in dhulkuna kala tago dadkuna kala tagaan maxaa ku xiga dagaallaa ku xigi doona waxaa ku xigi doona in cadowga laysu isticmaalo waxaa ku xigi doona sidii andalus dhulkii muslimiinta ka dhacay dhulkan oo dhan inay gaaladu qaadato inta dadkeeda laysu isticmaalo waana waxyaalaha taariikhdu shaahid ka tahay marka taas baa daliilka cad ay tilmaamayo xadiidku tilmaamayo waxa weeye wahada adallu daliilin calaa manci iqaamati imaamayni ciladuna waa taa mar kalaan ku noqon doonaa mawduuca isaga alimaamu nawowi calayh raxmatullah fi sharxi muslim wuxuu leeyahay isaguna wahada maxmuulun marka la leeyahay labada nin ee meesha madaxnimada wada sheeganaya midka dambe dile marka la leeyahay wuxuu leeyahay wahada maxmuulun calaa maa idaa lam yandafic ila biqatlihi xadiiska waxaa lagu xambaarayaa haddii sharkiisa si kale lagu reebi kari waayo ilaa dil mooye haddii sharkiisa la casili karo oo la iska daayin karana waa la sameyn haddiise lagu qasbanaado sharkiisa in laga badbaado dilkiisa lagu qasbanaado markaa hala dilo saasaa xadiidka laga wadaa buu leeyahay imaamu nawowi calayh raxmatullah ayib wuxuu leeyahy waqad sabaqa iidaaxu hada fi alabwaabi asaabiqa wa fiihi annahu laa yajuuzu caqduha likhaliifatayn xadiidka waxaa laga qaadanaya laba madaxa in aan madaxnimo loo dooran karaynin ayaa laga qaadanaya waqad sabaqa qariiban naqlu lijmaac fiihi mar dhowbaa waxaan soo guurinay buuhi arrinkaa inayna culimmadu isku khilaafsanayn waan soo goorin doonaa ijmacaan ku keeni doonaa in sha allahu tacala alxaafid ibnu kaiir fii tafsiirihi isaguna wuxuu leeyahay faama nasbu imaamayni fi lardi aw akar laba madax ama ka badan in dhulka muslimiinta loo doorto lagu sameeyo hee falaa yajuuzu ma bannaana maxaa yeelay liqowlihi calayhi الsalaatu wasalaam nabigaa wuxuu yidhi man jaءakum waamrukum jamiicun yuriidu an yufariqa baynakum faqtuluuhu ka'inan man kan xadiidka haddaan sheegaynay buu u deliishanay wuxuu yidhi wahada qowl اljumhuur waa culimmada badankood say qabaan waqad xaka alijmac cala dalika hayru waaxid culimo fara badanna inaan la iskuba khilaafsanayn bay soo guuriyeen iyadana waa u tegi doonaa ijmaaca isaga ayib intaasoo dhan waxay tilmaamayaan axaadiista nebigeen soo qaadannay yaa u deliishaday in hal madaxa wax ka badan aan dhulka muslimiinta loo samayn karin yaa u deliishaday culimmadaasaa u deliishaday iyo ka badan laakiin waa ka gaabsanayna waxaan ku khatimayaa qaybta iyada alimaamu maawardi fii kitaabihi adab addunya waaddiin wuxuu isaguna ka hadlay waxaan u tegi doonaa ijmaaca markaan gaadhno dhulku hadduu isku dhow yahay inaysan aslanba bannaanayn in laba dawlad loo kala sameeyo ijmaac buu soo guurin doonaa haddii dhulku kala fogaado sida maalan mashriq alcarabi oo kale iyo andalus oo kale andalus xagee waay andalus waa bortuqiiska iyo sbain iyo dhulkii la dhihi jiray andalus waay halkaa iyo baqdaad ama madiina ama maka ama dimashq intay isu jiraan hadduu dhulku saa u kala fogaado markaasi dhulkaa fogaaday aan la gaadhi karin ee baduhu u dhaxeeyaan ee maamulku gaadhi karin ee isu gurman karin ma imaamkaas unbay sugayaan mise meeshooday ku samaysanayaan midaan isaga ahayn mas'aladaasuu qolo qabta ka soo dooday kadibna wuxuu yidhi wadahaba aljumhuuru ilaa ana iqaamata imaamayni fii casrin waaxidin laa yajuusu sharcan xataa xaaladaasi dhulku kala fogyahay culimmada badankood waxay ku tageen hal ninoo madaxa ka badan lama samaysan karo waa dhulkii muslimiinta o dhan ogow saasay u badan yihiin buuri markaasuu wuxuu u deliishaday lima ruwiya can nebi sal lla alay waslam annahu qaal daliilkuna waxa weeye waa shayga nebiga laga wariyo oo uu yidhi idaa buuyica amiiraani faqtuluu axadahumaa yani lafdigu saa mahay haddii laba amiir la doorto ya midkood dila xadiidkaa waruwiya can nebi sal lla alay slam waxaa kaloo nabiga laga wariyey buu yidhi inuu yidhi nebigu idaa wallaytum abaa bakrin tajiduuhu qawiyan fii diin illahi caza wajalla daciifan fii badanihi haddaad abubakar doorataan waxaad helaysaan inuu diinta ku adag yahay shirkiisuna daciif waa waidaa wallaytum cumara tajiduunahu qawiyan fii diin illahi caza wajalla qawiyan fii badanihi haddaad cumar doorataanna waxaad heli doontaan inuu jidhkiisuna xoog badan yahay diintana ku adag yahay oo ku xoog badan yahay
وإن وليتم عليا هذا تلد علي وديبتانا تجدوه هاديا مهديا مذ هنون صنو إذن هنونيات هلي دون تانيلو ياهي حقيقة لشنا وحي فبين بظاهر هذا الكلام هذا كان النبي وحكو عليه صلى الله عليه وسلم ظاهر كيسا أن إقامة جميعهم في عصر واحد لا يصح كل قول أبو بكر يا عمر يا علي هل مر إن ليسلط دورته إننا السورة قال أهين يتلمام يا أبو ولو صح لأشار إليه ونبه عليه هذه سورة قال تهينا وأرن كاس وسروبي كرنا وتلمام له النبي صلى الله عليه وسلم أو عديه لها معي عمر دورته أبو بكر نلا دورته علي نلا دورته كان حوق كيسي كان هنون كيسي اسكو درع ساسو النبي وتلمام لها الرسول صلى الله عليه وسلم أو إشارة لها ما دام النبي وصل إشارين أو إذا هدات كان دورتان أو حسد كه ليسان هدات كان دورتان أو حسد كه ليسان هدات كان دورتان أو حسد كه ليسان إن آن أين إسوا إيمان كرين وهالمر أين والمدح وذا النقوم كرين بيت الماميسان حديث كاسو دليشدي لكن وان براروتشينا حديثه كان ضمن كالله حديث كان ضمن وضعيف حديث كان ضمن ما وردي دليشدي محوع دليشدي وضعيف مسألته أدلة كليلة إنسان شيء لكن حديث وضعيف نعم أنت سمحان كوجد بيننا أنت وحان كوجد بين أحاديث النبي كتل ما بين صلى الله عليه وسلم إن مسلمين تدل كون أين بنانين إن دولة كالدول هي مدح كالدول هي سلاطين هي حكام كالدول إن الله سمعيه سياسيا الكل جو يدل كمسلمين تين بنانين أحاديث النبي كتل ما يسوي قار كم يدور ورينا محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كتل ما ما حين سهل أدلة وحين ندلوا قرآنك سنة هي إجماع واحد هذا هو دليل كالصدحات وأدلة الشريعة كاملة وأنا علماء إسكراع أو إسكراعين مسألة إسكراعين مسألة دني مركب واحد سان صوت المامي با دولكو هدوك كلا فوقيه ومسلمين تقول كودو كلا فوقيه لبد ولودود ما كلا نقون كران الله ما رحم الله كلا السمين كرا علماء هبوا بنادين ماي لكن قاربا قبل ها قبل ومركا ضرورة كنتي لكن هدي دولكو اسكو دويه هل دولتي ودا قبان كرتو هل مامول ودا غاري كرو دولكاسي اوسن ادو كلا فوقي is gaari karaan oo isu gurman karaan dhulka noocaasa in laba dawladood laga dhiso la kala gooyo muslimiinta agtooda waa xaraan waana ijmaac oo khilaaf kuma jiro quraankana waa ka soo sheegay xadiis nabiguna waa ka tilmaantay ijmaaci culimadana waa kana dhageystay waxaan ku bilaabayaa al-imaam shaafici baa soo guuriyay alayhi rahmatullah imaam shaafici wuxuu dhintay labadii بقول يا أفرتي هجرية كتاب كيسا رسالة وكذا الرسالة صفحة أفر بقول سديدي توحوليه وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالهم وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدا والقاضي واحد والأمير واحد والإمام يعني المسلمين تعيشون راعين بوليه إن مدح المسلمين من نقضه وحسوق قوري سيدو كلا إجماع الإمام أبو نعيم الأصبهاني ويسونا قيريودي أفر بقول يصدق وحكسو قوري كتاب كيسالي هذا الإمامة والرد على الرافضة وحو تقريريني مركي النبي صلى الله عليه وسلم او قيريودي حسوق أول حيل كان لنا أودي من بوك قيريودي النبي مركو قيريودي صحابته انتين النبي آسن أيه وحي كشر عن عدي حلقة قبل الله مركي اللي يسويمت سقيفة بني ساعد اللي يسويمت ديسك بخاري ومسلم يورين أيام مركي اللي يسويمت ناس كم إذا صحابته وأنصاري أهل مدينة آيات تلسوا جيدي وحيري منا أمير ومنكم أمير قريش يدقيست مهاجرين يدقيست تلادوا إنه قيبسانو لبا أمير بينو سميسان لبا مدح ميد إذنكو إذن كإيمان منا أنكو نغا إيمان ساسا تلادوا قيبسانين
arrinka markuu yiri oo ogaa rag qaarkood u jixiyeen oo Umar uu ka baqay in la kala jabo ayuu Umar markii intuu soo booday ayuu arrinkii ka hortay oo wuxuu yiri meehe nahnu al-umara wa antum al-wuzara muhaajiriin iyo quraysh ayaa madaxdii ah idinkuna wasiiradoodii caawinayay baatiin markaasuu intuu booday buu markiiba Abu Bakar gacanta qabtay oo beeca la galay kadibna muslimiintii kala ku raacay ansaarna taladii ahayd uu soo jeediyay ninka ansaariga uu yiri annaguna amiir baa naga maan idinkana amiir baa idinka imaan ayaguna waa ka laabteeno Abu Bakar baa beecadii la wada galay marka wuxuu radinayaa nikaliya Abu Nuaym kitaabkiisa hadda aan sheegno wuxuu radinayaa hadalka ka soo yeeray ninka ansaariga ah ee ahaa minna amirun wa minkum amir labanin idinkana midkeena annagana mid aan keenno ayaa wuxuu leeyahay ghafalaha يعني منك الصحابي ويكوهس بحضي مركز أرنتي وتعليلنا وحلي لأن أهل الإسلام ضرر لأن المسلمين تؤردن قد أجمعوا على أنه لا يجوز كون خليفتين في عهد واحد ولا على قول مسلمين كل قد وحيسكر عيبون إن أي سنبنانين لونين ومضحة حل وقت إلا سميس ولا هل ضد إن الله سميه مسلمين تساسا يذكر عيبون وكان ذلك مما أنكره غير المسلمين اسكبعت مسلمين حتى تذكي كلام المسلمين تاين بأرنكا إنكريبون لأن فيما سلف من الأمم من العرب والعجم لم يكن قط أميران ولا خليفتان في عهد واحد وماذا نقول رجل عربي عجم بله لو مضح وحل واختيع مدعم بله وكيف يلجأ إليه المهاجرون والأنصار حدين أمدي قال هذا عينه كدعم با سبب صحابة النبي والمهاجرين أنصار له أي وقد كرتائين إلى هذا لوانين أو سيمان أو مضح وضع أين وضع دورنا منا يدين كيانو منا أنا وأنو كيانو أرين كاسمك وحلي وحي أنصار قبتميه وأرين كرنا عضي صحابي أو اسمه وقد عي خلق وقد عيوه وجدد محي تمر وجدد يدوى إجماع أسوق ورني لأن أهل الإسلام ضرا قد أجمعوا على أنه لا يجوز كون خليفتين في عهد واحد ولا على قول وحسب قوري إجماع سيدو كلا وننك صدحات أما إجماع صدحات وحسب قوري الإمام الماوردي سيك وتقريبا وحود انتي أفر بغلي وكونتك أبو نعيم له وحود انتي سمينا شيء أبو نعيم وحود انتي أفر بغلي الصدنك هجري ماوردي له وحود انتي أفر بغلي وكونتك وحليه كتاب كيسة أدب الدنيا والدين صفحة بقول أفر صدر له فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعا لما ضحى أما الصدح هل زمن هل وقت هل بلد إن الله سمعي مبنانا إجماعا علماء يسكبوا خلاف نقوله وخلاف علماء مدحيال طيب فأما في بلدان شتى وأمصار متباعدة مركز وحكسي هاللي هدور لكم كلا فوقادو halka marka culimada qaar kamida martay buu leeyahay dhulka fogaaday inay iyagu dawlad iyo madax gooni meeshooda ka samaysan karaan waliba ka uu sii fogay isagu wuxuu yiri waa daaifa shaada halka martay buu leeyahay طيب soo ijmaaci saddexaad ma ijmaaca afraad waxa soo guuriyay al-imam Abu Muhammad ibn Hazm fi kitabihi al-Fisal fi al-Milal wal-Ahwa' wal-Nihal wuxuu leeyahay صفحة وحكوسو غوريي مجلد كأفراد أفر بقول صدوات الصدح مركو كسو هاللي وحكسو هاللي سيدا يدبا إن مدحل السماية وقلول كمام الله السماية ما واجب لا مس واجب ما مسدتكم مام الله هم بيسكتشوا يكره تود كتير تمركو سو غوريي يا أهل السنة وحي قبان كذبوا حير ثم اتفق من ذكرنا ممن يرى فرض الإمامة انت كدي waxay isku raaceen buu kuwa aan soo sheegnay inta qabta in dhulka madax loo sameeyo inay laazim tahay inta qabtay ee aan soo sheegnay waxay isku raaceen ala annahu la yajuzu kawnu imamayn fi waqtin wahid fi al'alam in ay sanbanaanayn
عالم كإسلام كإن لبم مدح هل مر لو وضع السماء ولا يجوز إلا إمام واحد. طيب هل إمام أموياني لو ما بنانا ولا يجوز له ما بناينين هل إمام هل إمام بيعيد كلام ما بنا يعني لبي صدحي ما بنا لكن واحد بنايب الأرن كإسقى لبننا مبتدعة يا أصحابته أو تقدونا يا بنيه أو قبا مسألة داسي أهل السنة هم يا قبا مش مبتدعة دا قبا كذا البنك تلمامتون مركوا إجماعي أفراد هو أين مسألة دا سوق ورينيوا هذا غير بوليه لكن أنت سنكها قبسنا يا إجماع من كربا مركله ابن حزم كتاب كيس مراتب الإجماع يسوون وحده واتفقوا أي الفقهاء وحيذكر راعين على أنه لا يجوز على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد. وحي الفقهاء علماء يذكر راعين إننا بنانين المسلمين تو وقت هالوقت الدنك أردن ومسلمين عالم الإسلامي أردن لبا إمام لبا يوم مدح إلا السماء أما هي سوافق صنادين أما هكذا الدوانادين أما هل مكانها هذين أما دولك وهو قال الدوانادين إننا بنانين بيذكر راعين بوليه هاي علماء المسلمين. إمام كل هذا إجماع السوق كوريي وإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين سووا وحو جيريودي أفر بقول تضبات السديتي وحو كسو كوريي إجماع في كتاب كيس الإرشاد إلى قواطع الأدلة وحوليه هذا الكيسوات أن عقد الإمامة لشخصين في سطح واحد متضايق الخطط والمخالف غير جائز وقد حصل الإجماع عليه. دول الآن هذا كلفوجين وإسكولو يا وإسمامولي كرا وإسكور هين كرا دول نوع عاسو إسكولو إن لو مدح الله كلا سماية إنه سنبنانين وإجماع بود قال إسكور عاسي مركل إجماع وحكسو كوريا كتاب كيس غياث الأمم في التئاس الظلم صفحة هذا بقول تضوات الصدح. طيب وحوليه وإذا تيسر نصب إمام واحد يطبق خطة الإسلام نظره ويشمل الخليفة على تفاوت مراتبها في مشارق الأرض ومغاربها أثره تعين نصبه ولم يصب والحالة هذه نصب إمامين وهذا متفق عليه. هذا فضود دهي هل مدح إلا سميس أو النظام كيسو وذا قاري كرولك مسلمين أو دولكنا أوسان آدو كالفوقين راد كيسا إيرو وذا قاري كرو مركا وحا لازمة هل إن مدح ذا لقدقو mana banaana buu suurtagalna mana saxoonayso xaaladu mar haday sidaas tahay laba madax in la sameeyo wa hada muttafaqun alayhi wa lasku ogolyahay wala yulfa fihi khilaf wa lasku waafaqsan yahay wax khilaafana lama ogo marka ku jira masalada xaalada iyada tayib markaasuu sii wada wuxuu leeyahay walamma istatabat albay'atu li khalifati rasuulillah sallallahu alayhi wasallam abi bakr markii abu bakr la doortay kadibna طيب خلافه markii iyo madaxnimadii Abu Bakar kadibna ay sida ku socotay hal nin in la dooran markuu dhinto ku kala lagu xijin saa ay ku socotay ilaa aimada zamankoodii ka dhamaadayna aasaa ahayd markaas si cad oo idiraara waxa u muuqda buu leeyahay iyadoon ahadiis farbad in la soo guuriyo u baahanin oo muhaajiriin iyo ansaar in laga soo guuriyo iyadoon u baahaninba waxa iska cad buu markaa leeyahay oo arintaas tilmaamaysa Abu Bakar laga soo bilaabo Abu Bakar markuu dhintay ayaa xilkii Umar buu dardaarmay Umar baa xilkii muslimiinta qabtay sooma Umar markii la dilayna xilkii muslimiinta wuxuu u dardaarmay 6 nin oo kamid ah inay dhexdooda iska doortaan Uthman bay u doorteen Uthman markii la dilayna muslimiintu waxay doorteen Ali bay doorteen Ali waqtigiisii waa ka khilaaf ku dhacay وهكذا مسلمين ولي جود بحال نبي كسعودين اللهم راحل معين وفتن دعاي وخلاف دعاي مويه ساسولي أرجع سمرك وحط المام يا إلى دولة الأموية وحل هذا يعني مركي إلى لقى جارو وقل يصدن يوحوجا أو دولة الأموية دولة دي أوهرسي أي بابا هذا لقى قاطع حلك يعني لقى قبصدي وحل وريجي يعني وحويان دول الخلافة العثمانية عندي الخلافة العباسية
عباسية مركا وحوي أيقنا إلى أئمدي وويناء أي كدماني كضعيف شيء مسلمين تو هالخلاف هالخليفة لها أيقولوا لكم هذا بلارين ويحق الجارين إلى تشيني جارين حق نوعي جارين إلى محوها إلى أندلس يقول كاسي جارين أندلس وحي كش شيء مويانا أنت كسو كيس مشرق المغرب هالخليفة لها وبغداد فدي أرنك مركا وحوي متوارث كا المسلمين تو تاريخ ده ساعي وكلا دحلين وحي تلمام يسابوني أن مبنى الإمامة على ألا يتصدى لها إلا فرد حلك مدحن مدى هالروح كلية إنه اشتاقي ولا يتعرض لها إلا واحد في الدهر هالروح كلية إنه أبن بحي ومن لم يحد بدرك ذلك من شيب العاقدين والذين عقد لهم فهو بعيد الفهم فدم القريحة مستميت الفكر إجماع سوسوغنا سوغوري مركل وحو سوغوري الإمام الجويني في قياس تابع القياس مركلنا هو سوغوريو وحو يري وإن نصب إمام في بعضها وآخر في باقيها مع التمكن من نصب إمام نافذ الأمر في جميع الخطة كان ذلك باطلا إجماعا أيقول لك مسلمين لن حال نينو مدح لوغا ديكرو إن ننكل الله سمعيه وباطل بوليه هاي إجماعا خلاف الآن طيب وقورما هذول دول إسكاري كرو هل دولة كتلين كرتوية إلا بدولة الله كلا سمعيه الله مدح الله كلا سمعيه وباطل إجماعا ساسو ليجويني كياب كيس غياس وحسو قوري إمامك أما إجماع السقالات وحسو قوري الإمام يعني وحوي البزدوي حنفي قاها وحكسو قوري كتاب كيس أصول الدين وحليه قال عامة أهل القبلة لا يجوز أن تعقد لاثنين الإمامة لو عقد لواحد لا يجوز أن يعقد لآخر ولو عقد لآخر يكون الأول هو الإمام دون الثاني إلا أن يغلب الثاني فيصير إماما بالغلبة عند عامة أهل السنة والجماعة على ما تبين أو على ما نبين مركزو كسو قوري كرامية ده يعني سيدا سكد وانقبام مركزو وحولي ولكن عامة أهل السنة والجماعة قالوا إن هذا خلاف إجماع الصحابة وخلاف إجماع الأمة فإنهم أجمعوا على خليفة واحدة يعني صحابة إجماعوا دي إيوه إجماعي أمة يا خلاف سنتها إن لي إذا دولك مسلمين تا لبدوا لذا هلقا كلا ديسو يسونا حكسو قورنا كتاب كيس أصول الدين صفحة بقول إيوه سياشن يصدح يسونا قيريدي سوحة يهيد أفر بقول يسياشن يصدح دي طيب إمام كحقاء أما إجماع الطبنات وحوي الإمام العمراني وأئمة مذهب الشافعي سورة قيري بقول يكون تني سديدي كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي ويسونا كسو قورنا هذا الكنس مجلد كلام يتوبنات صفحة يتوبنات وحوليه ولا يجوز نصب إمامين وقال الجويني يجوز عقد الإمامة لإمامين في سعقين متباعدين يعني لو بدو لو آدو كلفوق جويني وحويري لبدو لو والله كلا دسكرا مركز وحويري عمراني وحويري وهذا خطأ لإجماع الأمة أن ذلك لا يجوز هذا الكاجويني وخلط محايلي أمده حيكون إجماع ذي هل إمام كليه هل نينو مدحين الله سميش إجماع عاسي سوقنا وسوقوري وحاكا له سوقوري إجماع كوي طبناد وحسوقوري الإمام أبو الحسن ابن قطان سونا وحو قيريو ذي لحب قولي الله تلي سديدي وحو سوقوري كتاب كيسا على إقناع في مسائل الإجماع وحو واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع أقطار الأرض إمامان متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد وحكروا وأجمع المسلمون على أن الإمام واحد والخليفة واحد مسلمين توحيسكون راعين هل مدح بيليه وحسوقوا يسيدوا كالكلامية طبناد الإمام القرطبي في تفسيره وحوليه هاي مسألة ذا صدبية طبناد فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعا لما ذكرنا هذه لنا صوشيك ندرادت وإجماع وليسكم خلاف سنين يسان بنانه وحسوقوا إجماع صدحية طبناد الإمام النووي سونا وحو قيريو ذي لحبة وطلبات اللحدي شرح مسلم بكسو قوري مجلد كلامي طبناد الله بغل صدن يكو وحوليه واتفق العلماء
على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دائرة الإسلام أم لا. يعني أما دولكو هبلاد أم يسن بلادني علماء waxay isku raaceen inaan laba nin oo madax la sameeysan karin oo muxuu ahay laba dawladood oo kala taliya. waxa soo guuriyay sidoo kale ijmaaca oo ijmaaca 14aada waxa soo guuriyay Sheikh Mohammed Rashid Rida kitaabkiisa al-Khilafa markuu kalaamkii wabma wardi soo guuriyay kadib ayaa wuxuu yiri hadalkan. طيب wuxuu وأما في حال إمكان الوحدة هذي صورة قلتها دولك مسلمين تهل مامول إن الله سميه فلا نعلم أن أحدا من العلماء ما أقيم بيقول أحد علماء كمذا الذين لعلمهم قيمة وعلماء علم قود قيمة ليه مبتدع يمد هلا وصلش كده علماء علم قود قيمة ليه مد كمذا ما أقيم وقال يلي بجواز التعدد هو يلي ويبنان تهي مضح تراء أما كلا الدوان دولك مسلمين تهي الله سميه ما أقيم بوليه. طيب يعني أنت علماء هذا الكود علم قود الله تريوه أو معناه كفري لأن أقوانتي سو معناه كفري أنا مبتدعة أسأل وركا كمتشنوا ليه. طيب وحاكم إذا أنت صور المركة وحواي ويبدأ لك أنت سنكو قابسا تقريبا وأفر طبعا إجماع أو أئمة كلا دوان أي سو قوريا قاروا يكون العليا سجويني أو كلا يعني كتبتي هل كتاب دور بور كسو علي لما كتاب كسو قوريا مد دور بور كسو علي أفر طبعا نقلي أو إجماع أو إن ليسكون رأسين هدول كمسلمين تهدوا هل معمول يلان كرو أو هل دولة كتلين كرو أو إسجاري كرو أو إسجور من كرو إن لك لقيبين كرين لما الدولة دودنا اللوكال السمين كرين لما معمول اللوكال السمين كرين لما مدحوينا المسنكلي يلان كرين أفر طبعا كإجماع عن كجاب سنة وقرآن كي سنة دي هي إجماعي علماء. طيب أنت أمريكان كسو قدومنا حاولوا معنا أمريكان محل ديني محل ديني دول كمسلمين تا حل من كلية ما ده حل غير محل ديني هل دولة كلية هكذا سببت اللود ديني وحوي أتنصو شيئنا يو دولة كلا كتيسان مركز لقى ديسو وإسخلافة يا مسلمين تينا ويكلا راعية هذا إسخلافنا وحا إيماني سمركاسي إنه إسكول عانا أتماع دي كراستي إنه بمقع إيا كرسي يقيب إنه قوستور ربا كدبنا مدول بإنتي هوست جوكتي مسلمين تأهيد با مركز راعيس مركز راعدانا محاد عايا لبدا الدولودات با إسديلي مركز إسديلانا محاد عايا ليكي مسلمين تأدادنا محاد كدن بينيا لولكي مسلمين تيو ضعيفة maxaa ku xiga inuu midba kale u kaashado cadawgiisa kan u kaashado maxaa ku xiga dhulkii muslimiinta wax difaac la waay wagacanta ka bax waxa soo dhan maxay ka yimaadeen ayada oo la fiirinayo mafaasida inta la eg ee isdabata la maalaadkaas daraadeed ba culimadu ugu ijmaaceen oo isugu raaceen inaynan banaanayn laba maamul iyo laba dawladood macnahaasi waxa إشاري إلهي أمركي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمينا سوى الشيء إن مركي أبو بكر دور الشديسي مركي نبي قول أنت نين أنصاري إنه سوى الشيء منا أمير ومنكم أمير سمينا شيء أنصاري يعني مهاجرين إذن كنا نين كان أننا نبان كيننا لوضع نبان مضحين ووضع النقل عمر صوموسا ديدين أو كما قلت هذا الذي عمر وحا كمدها هذا في صدر عمر وحيد إنه لا يصلح سيفان في غمد واحد ورنيه أمير كان أنا أمير بان كينينا لبنين ومضحى وحين غسوا روبي كريم لبس سيفوت حلق الموضى قلام بود معناها فهم لبس سيفوت حلق قلها السقومة كان ما عدا يد يسوق تجا ويسعونيا يا ويسقينيا
هذا الكاس عمر وهذا الكمرتدى سوما سومالي وحوية هل دولة بيهيد دويليد باكا صوبحي هل ودن أو قل كي سيفتا maxaa isugu tagay seefo far badan baa isugu tagay maxaa ka dhashay marka hal iscuno tan landis baa la dhahaa admaac bay leedahay tan landis baa la dhahaa mid baa madaxa ka tan landis baa mid waxa kala ka mid baa meel bay salka ku haysaa wadamada ajnabiga iyo gaalaas mid walba shaah la cabtaayo la qaxwaysaa way tala wadaag la leedahay Soomaaliyeed ta kale ka soo horjeediyo cidii waxeeda diidaba dan kaba la halayso سو سيفه سعون أيما إنه لا يصلح سيفان في غمد واحد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا الكاس وهذا عمر كالسقن بزار باصو صار في مسنده كما في البحر الزخار لالكاي باصو صار في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عبد الله بن عباس بيكورنا بسناد صحيح نسائي باصو صار في الكبرى والبيهق كذلك في الكبرى لالكاي في شرح اعتقاد أهل السنة كذلك عن سالم بن عبيد وكم إذا أصحاب الصفة بسند صحيح كذلك لفظ وحكو إيمانيا غمد يعني سيفان في غمد واحد لا يصطلحان لفظنا لا يصلحان واحد لفظ كلو روايتكم إنه لا يصطلحان مهشينيان واحد لبس سيفوضا قال كودا جيري مهشينيان سيداس درادت ورنيه أمير كان أننا أمير بان كينينا لبدنا أمير دولك كوهشين مايان مسلمين تنو يسكو دلي دونان ايغانا way islayn doonaan warkaasi socon maaye kale Abu Bakar baynu wada dooran waa hal nin mooyee laba madax inoo noqon waaya طيب ujeedadu marka wata way cadaad muxuu yahay hal maamul waxa loo leeyahay inaan muslimiintu iskhilaaf inayna jabin inayna islaynin inayna daciifin ujeedadu taas الامام ابو المعالي الجويني امام الحرمين با wuxuu leeyahay macnaha aad u qiimo badan وقد تقرر من دين الأمة قاطبة أن الغرض من الإمامة جمع الآراء المشتتة وارتباط الأهواء المتفاوتة وليس بالخافي على ذوي البصائر أن الدول إنما تضرب بتحزب الأمراء وتفرق الآراء وتجذب الأهواء ونظام الملك وقوام الأمر بالإذعان والإقرار لذي رأي ثابت لا يستبد ولا ينفرد بل يستضيء بعقول العقلاء ويستبين برأي طوائف الحكماء والعلماء ويستثمر اللباب الألباب فيحصل من انفراده الفائدة العظمى في قطع الاختلاف ويتحقق في استضاءته استثمار عقول العقلاء مركب معناها أنت المامية مركب وحوي هذا الكيس وديريه لكن ما شاء الله تقول نقول كرتان عدي وباهن معناه وحويان وتشدد اللودي ذي واتا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوى الكبرى مجلد كاللحاد وقال يسديته وحليه السابع والعشرون أنه صلى الله عليه وآله وسلم سن الاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك نبي وحو جيدايه بولايه مسلمين تو inay ku kulmaan hal nin oo madaxnimada imaamnimada weyn imaamnimadu laba waay imaamnimada weyn oo ninka madaxda muslimiinta u taliya iyo imaamnimada yar oo midda salaada marka imaamnimada weyn nabigu wuxuu jideeyay in hal imaam la sameeyo طيب kadibna sababtu sheegay وفي صلاة الخوف وغير ذلك مع كون إمامين في صلاة الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية لما في التفريق محل ديني لو إمام لما في التفريق من خوف تفريق القلوب لأن قلوب تاكلتين وتشتت همم كلا دقاقي ثم إن محافظة الشارع على عقيدة الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين وزجره عما قد يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات لا يكاد ينضبط إلى آخر هذا الكيس. ابن القيم سجن في إعلام الموقعين مجلد كسدحات بقول لحيه الوجه 38 أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف. هذا ابن تيمية وكله أي يسوون ساء سوغورين أو حليه شارع الله رسولك
waxayna amreen inaan hal nin oo madax yeelano madaxnimada sare madaxweynaha xaakimka madaxa muslimiinta sare inuu hal midno ayaa ilayna amray waa sababtu marka taas waa wuxuu leeyahay Abu Zakariya al-Ansari Sheikh al-Islam wuxuu leeyahay kitabkiisa Asn al-Matalib wuxuu leeyahay wal mahdhur min ijtimaa'i khalifatayn ikhtilaf al-kalima laba nin oo madax maxaa loo diiday laana kelimada muslimiinta iskhilaafayso الإمام الخطيب الشربيني في مغني المحتاج سوره حليه شربيني ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر لبن يكبضا إن مدحني الله دورت ما بنانا ولو بأقاليم ولو تبعدت لما في ذلك من اختلاف الرأي وتفرق الشمل لأن المسلمين تايس خلافة ولا كل تجي يا لبن إنه مدح دول كمسلمين تأتي له قصة حلو تاوان طيب بركتنا وفاء نسمع قرآن كي الله سنة النبي culimada ijmaacoodii iyo cilada loo diiday maxay tahay tacliilka maxaa loo diiday waa wax iska cad waa cid ka fahmi karto goortii dhulka la kala qaybsado oo la kala goo oo madax badan soo baxaan la inooga sheekeyn maayo inaga Soomaaliyeed maanta waxa kale culimadu daliishadeen wax la yiraahdo al-ma'qul sifaan la duuxda ma jaa al-ma'qul waxa la yiraahdaa aqliga aadamaha عقلك آدمها لفتي سوحو كينيا إن دولك مسلمين تهال مدح الله سمي أنت إسكاري كرت سيداب ودري شداء معقولك الإمام ابن حزم في كتابه الفصل عليه الذي مركو سوشي النقل وأما من طريق النظر والمصلحة فلو جاز أن يكون في العالم إمامان لجاز أن يكون فيه 3 و4 وأكثر فإن منع من ذلك مانع كان متحكما بلا برهان ومدعيا بلا دليل وهذا هو الباطل الذي لا يعجز عنه أحد وإن جاز ذلك زاد الأمر حتى يكون في العالم إمام وفي كل مدينة إمام وفي كل قرية إمام أو يكون كل أحد وخليفة كل أحد خليفة في منزله وهذا هو الفساد المحض وهلاك الدين والدنيا هذا الكائن إذن معناه حق في رضا هي مصلحة مركة مسألة لقى استاغو وحوليه هذي بنانان لهي عالم كإسلام كإن لوبان هدي لبنايا إن لبن مدح الله كلا سمين كرو ولا كلا قوين كرو ولا بدل الله سمين كرو تاوحا كدلا نيسا إن بناناتو إن صدح مدحنا الله سمين كرو أفرنا الله سمين كرو يوحي كبر هداد أقلات الله إن الله سمين كرو صدح ما حد كديدي أفر ما حد كديدي إلا كان عقلي قد كتري لا الله سمين كرا وإسكو أودا dhulkiina waa loo kala jari karaa haduu mid kale yimaado yiraahdo ma yahay hadaynu afar ka dhigana ka sii fiican dhulka aan afar ku sii kala qaybino maxaa ku diidi kartaa ma jiro waa طيب اللهم إنا دين حجج wax ku wada ma aqaan oo la jiifiyana banaan ay tahay haday la jiifiyana banaan la joojiyana banaan meesheeda waa laakiin hadaada oo galaato dhulka muslimku inuu laba u qaybsami karo inuu saddex u qaybsami karo waa inaad u galaato صدح إنه قيبسان كور هذا أقولاتنا أفر إنه قيبسان كور وإنه أقولات أفر هذا أقولاتنا إنه سي قيبسان كور وإنه أقولات ما دي ذكرت وهذا الباطل الذي لا يعجز عنه أحد الرنكاسين هو باطل آن إدك عاجز كر نينك سوا كري كرا إنه صاصو كلا إدول بيسكشة يقطوا صورة قلبه ويما كسي داري كرتايو وحكوليه وحا إيمان دون دادا سيدات هذا إن مجالك كستلي هذا مدحوينها الله سبحانه tuulo kasta ka sii degto leeyahdana tuulo kasta madaxweynaha loo sameeyo illa yiraahdo ma aha nin walba gurigiisa madaxweynuhu ka yahay iyo reerkiisa Soomaali maanis maxaad ku diiday hadaa tiraahdo Soomaaliland ha goodo oo dawlad ha noqoto oo way banaan tahay oo xaq bay u leedahay maxaad ku diiday Soomaaliland lafteeda inay si kala goodo ولما دولود صدق شيء كلا نقط ما حد كديد هذي بنتلان حق قضاءات له بنتلان إنه شيء كلا قضاء ما حد كديدي سوما كونفور قلب هذا ترى هذا دولود هنقطه حق قضاء الصومالي إنه شيء كلا قضاء نقولوا ما حد كديدي لأن عقلي شرعي منه ما
inaad tiraahdo tanna way go'i kartaa oo xaq bay u leedahay ya sida wayahan daba wadaadada qaarkood ku dhawaaqayeen xaq bay u leedahay way go'i kartaa waa ku garab taaganahay waayee kuwa idin diidan ee idin ka midana inay go'aan ayagana ogolaada tan daliilkaad u hesheen baa tan u helaysaan laakiin tan daliil baan u haynaa oo xaq bay u leedahay ku garab istaagayna ta kale naga sii go'aysana iyadana daliil ma haysana xaq mayna waa in la dagaalamo la soo celiyo taasi waxa weeye la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan waa taxakkum bila daliil buu ku tilmaamay ibn hazm alayhi rahmatullah soomaarad irid furanta way marka ilaa marka ugu dambaysa waxay gaaraysaa hadaad mabda'a ogolaato taageerto waxay gaaraysaa marka ugu dambaysa aad ogolaato nin walba iyo reerkiisa iyo qoyskiisa iyo tuuladiisu madaxweyne ka yahay وما حد قد يديت سوما كور هذا كسر دكتو ونبدأ كور كسر بعضه ميلكو علين إذا ما جرت عقلنا كو علين ما دليل شرعي أنا دوحكم ما علين كرتيد ما علين كرتيد من هو يستاهل كرتيد إلى أن يشوف قدام بسؤال لسيك لا تشجبه أرين كان إسكتنا في شرعي روح عقلي لما يلاهدو علماء إسكتنا في عامكم هذا الشو سوما وحاسا كذا لمرك mar haday taasi iimaan karto buu leeyahay ibn hazm alayhi rahmatullahi culimadu waxay leeyihiin mar haday halkaas waxani ka laazimayo halka kore hal joogo hal lagu celiyo wixii ka hooseeyana hal yiraahdo maya sida nusuusta ku soo aroortay tayib arinkaasi marka inta waa quraanka hadiista nabiga ijmaa culimada ta'liilka iyo maslaxada iyo nadarka يا ديدان واي مر ارينكا يا خلافسن وحريبان idinku soo sheegay waxaan idhi dhulka haduu kala fog yahay waa mas'ala kale dhulku haduu kala fog yahay oo dawladdu ayna wada gaari karin oo ayna isu gurman karin oo aan maamulku wada gaari karin oo dhulku dayacmay iyo dadka joogay markaasi qaybta iyada ay xaaladda iyada culimada muslimiinta qaar baa qaba jumhuurtu haba khilaafsanaadeen laakiin hal dhul iyo hal deegaan iyo dhul isu dhow oo hal dawlad yeelan kara hal kala gooyo oo laba dawlad laga dhigo dhulka hal la qaybiyo oo madax kala duwan hal loo sameeyo yaa ku khilaafsan culimada ahlus sunnaha yaa shaqaba arinta jawaabteedu waxa weeye intaan aniga arkay xaaladuna waa taas yaan lagu khaldamin xaaladu waa hal dal ah oo isku dhow oo hal dawlad maamuli karto in la kala gooyo yaa qaba waxa qaba ahlul bid'ah waxa laga soo guuriyaa dhowr qolo waxa laga soo guuriyaa ninka yiraahdo Muhammad ibn Karram as-Sajistani waa ninka asaasay فرقة اللي يدها الكرامية نكاسي وحي ردان إذن تابت محمد بن كرام السجستاني والمبتدع وشيخ الكرامية وهو عادني زاهده وعابده عانه نكا استقع وحوها مرجئة مضحدة كمدها وحو كتغي ومسايش كتغي كمدها إيمانك وأن عربك قلبك يحبنها إن إيمان لك لي هذا إيمان مباحظ هذا عربك بس تكرر واقضه مؤمن باتهي وغلات المرجئة سيد أستراد مبتدع بوها نينك اللباد مسألة قباء يلقسوا قوري وأن يدهدو أبو الصباح السمرقندي أساقنا نينك سنووك وها يسوون مبتدع بوها أبو الصباح السمرقندي مبتدعيدو كمدا مبادئدي سوحا كمدا يا أفكارتي سو كتغي خلقك يا مخلوق ولقود بإلهي ويلا جرين أهل الكتاب كوحي قورعان حلال ما أبو بكر دقالكي ولقلي أصحاب الردة لما دين تكبحي دقالكي ولقلي أصحابه كل جماعين وكو خلدمي أساقنا مبتدع لباد بوها أبو الصباح السمرقندي وحاوه ليه
oo iyagana laga soo guuriyaa nimanka la yiraahdo shiicada raafidada imaamiyada shiicada Iran imaamiyadana waa laga soo guuriyaa inkastoo iyagu suuro kale ay leedahay imaam qarsoon iyo imaam muuqday sameeyaan imaam qarsoon waa hore god galay iyo mid matalo dhulka jooga laba imaamiya ka badan bay qabaan ayadana waa laga soo guuriyaa waxa kale laga soo guuriyaa nimanka la yiraahdo zaydiyada aymadooda zaydiyadu waa firqa kamida firqada shiicada oo firqada ugu sokaysa waxa kale laga soo guuriyaa nin la yiraahdo jaahid waa ninkii mu'taziliga isaguna inta aan arkay dhulka muslimka ee isu dhaway isgaari kara laba madax baa laga kala sameyn karaa mubtadi'ada qabta ahlu sunna ma qabaan haye waqtiga wala dhaafo la isoo qor طيب waa soo gabagabayday waxa ka soo guuriyay nimanka iyaga ama nuqushaas xagee ku taala waxa ka soo guuriyay asxaab waxa ka soo guuriyay ibn hazmi waxa ka soo guuriyay qurtubi waxa ka soo guuriyay sidoo kale ibn kathir fi tafsirihi shahrastani waa ka soo guuriyay iyaga soo dhan baa u tiiriyay waxaan ku soo gabagabaynay laba mas'ala aan la isku khaldin marka mas'alada laga yaabo inaad isweydiinaysaan wadaadada qaar koodna laga yaabaa inay dadka ku khaldaan waa mas'alada soo socoto maxay tahay caalamul islaami waxaan hadda aan ka hadlayno oo hal dawlad iyo hal dal ama ah caalamul islaami waa qaybsamay waagii dhexe ay khilaafadu daciiftayna dawladaha soo baxay haddana markii gumaysigu dhulka muslimiinta qabsaday wuu qaybiyay wuu kala googooyay dal walbana madax buu u sameeyay madaxdii iyo qaabkii gumaystaha reer galbeedku dhulka muslimiinta u qaybiyayna hadda wuxuu jiraan dawladahaas marka kala jiro madaxdaas kala jirta wadaado markaad leedahay hal nin madax laga dhigto adiga ma qarwaysa kaale ma riyoonaysa caalamka waxaas hadda kaba jireen mise waxaad leedahay dhulkan kuwan ka taliye madaxdan adduunka ka talisaay madax ma ahe hal lagu kaco hal tuuro oo meesha laga saaro mas'aladu marka saama waxa kala duwan waaqi abuurmay oo aan raali ku ahayn annagu aanan samaysanin aanan raalina ku ahayn aanan taageersanayn laakiin wax samaysmay ah mar hadduu sidaas oo kale u samaysmay kolba intii dawladii ka jirto inta jirta hal la isku hayo cidda madaxda ka ana hal la adeeco wixii khayr ah lagaga dambeeyo mas'aladana waa mas'alada culimada mucaasiriinta in badan ay ka hadleen oo macnaheedu ma aha hadii mesela la waayo caalam islaami inuu isu yimaado dawladda sacuudiga ka dhisan ama masar ka dhisan ama soomaaliya ka dhisan ama Djibouti ka dhisan ama Yemen ka dhisan dawlad ma hal tuuro waxba aan laga dhageysanin ma ee macnaheedu waxa weeye waxani waa amrul waaqi' waa wax shira aan lahayn hadda inaan awood ku bedelo hadii la yiraahdo awood ha lagu bedelo fitan ka badan baa ka dhalan marka wax way bacdu sharri ahwan min ba'd ضرورة أهان إيوه كمار باللآن إيوه مفازيد هلا يريو أيها سيدة هذا أي تهي هلوغو أقبلو سيدة أي هذا تهين هلوغو لشقيو سيدة هذا أي تهين هلوغو قدم بيو سي أن دبك اللو كردين ومفسدودو أكردين هل كاسي علماء معاصرين تيقارحوه كسارين أو كمدي مثلا يعني وحويان شوكاني أو كمدي هاي مثلا محوها هاي نقول هذا هو هاي صنعاني أو كمدي هاي هو هاي نقول شيء محمد رشيد رضا أو كمدي هاي نقول شيء الشيخ محمد عبد الوهاب أو كمدي الشيخ الإسلام ابن تيمية النقوشي سقار كمدة وحلقها الله يبارك قيب تاسوا ابن تيمية وكان وحوليه والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه
فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحكم. هذا المسلمين معصية أي قليل قار تبرؤوا أي إلي وحكا قبطان إيا قار معصية قليل درتين أي أقيب سمان والدولة صوبحان دولة ضرب مركب ماشي هذا حدودنا أوفيس حقوقنا هقدو ومدنا هكما مش لكن مرالي بالغيه ما صحبة ما لا تغير زيه ما وحوليه لمعصية أو لعجز قيبسا كان لقيبيه ومعصيه وضدك قاركود أي قلين إن المسلمين تكال مقنادان إيا قار عاجسين وحبك قبان كريم مركز سيدا إيادا نيول بميشو تشوغو وحكا قبطا إنتو مامولنا هم مامولو مسألة داسي مركز وحوي أمر الواقع أن راليغا لغا أهين إيو يان ليسكو خلطين وحا ليدا هذا مسألة أصل كده وعلماء أي كهلا الدين لو هي مركز وحدة دي وذا شركي كوري انت هدا شرتها الله إلهي وهي علماء ليه انت هدا شرتها الله قيبسيه لك ليه هاي دولد والبا انت وذا شرتاي سيدا هذا هلقو إلهي يعني لسيك لقيبين صوماليا سو دولد ما هين يعني لسيك لقيبين سعودي سو دولد ما يعني لسيك لقيبين يمن سو دولد ما يعني لسيك لقيبين يبقى يعني لسيك كرديني حال أو علماء المسلمين تورده يعركي ميسي dadka isku dawladda ah ha laga shaqeeyo sidii inta loo qaybiyo laba dawladood loogu kala sameyn lahaa waxay ka hadlayaan culimadu wax way waaqican samaysmay halala noolaado hana laga shaqeeyo sidii la isugu keeni lahaa inta wada joogtanayaan la sii kala qaadin oo la sii kala qaybinin oo dawladda laga sameeynin mas'aladaas ay marka culimadu ay tilmaamayaan mid baan marka hadalka u leeyahay yaan laydin ku dhigin hadallada qaarkood oo culimada ka soo arooray baa wadada qaarkood waxay u dhigi karaan inay yiraahdaan waa kuwan culimadii waxay leeyihiin madaxda hadda jirta hal adeeco wadamada hadda jirta ay sidii jirta hal lagu ilaaliyo waa sax laakiin hal lagu ilaaliyo macnaheedu waxa maraali baan ka nahay hal lagu adeeco maraali baan ka nahay ma shariicada sidii raali kaga kuwa hadda jira hal si kala gooyo ma cid baa qabta maya raali lagama ah laakiin waa lagu qasbay wax dantu ku baday iyo waxa doorasho u leedahay Soomaa waxay dantu ku baday iyo waxa doorasho leedahay kala duwan sidan dantaana baday haddaan ka guuro dhahnana dibkaas sii kordhi sidan aan ku haynayna laakiin maxaan ka shaqaynaynaa intii suurtagal in la isu soo celiyo intii la midayn kara in la mideeyo intii hore sii wada joogtayna yaan la kala kaxaynin culimadu halkaas ay marayaan ee cidda haysa inta wada joogta hal la kala kaxeeyo oo xaq baad u leedahay gooso xaq baad u leedahay dawlad baad noqon kartaa tan waad ka go'i kartaa waa ku garab taaganahay arrinkaasi wax weeyaan hal culimada islaamka ka mid oo qabaay ma aanan arkin waxaan ku gabagabaynayaa masaladaasi waxaan aan doonayaa culimada Soomaaliya meel kasta joogaan mas'aladaasi in baxthi iyo baarid dib loogu celiyo mas'aladaasi in laga baaraan dego wadaadada qaarkood oo dawladaha yaryarkee kala yaacaya garab taagan oo xaq bay leedahay way go'i kartaa way tagi kartaa middan hadday tagto tu kala tagi mas'aladana hoosta ka xariiqa mas'alada hoosta ka xariiqa Somaliland hadday baxdo Puntland way bixi Somaliland way bixi koonfur galbeedna way bixi waana barnaamij mukhatat oo loogu talagalay waa hore la qorsheeyay balkan in qayb loo kala saaro ninka wadaadkee marka taagan ee way go'i kartaa balkani waa kala daadan karaa waa qorshe waa hore gaalad dajisay ayaad marka ku dhacaysaa ama ogow ama ha ogaan mas'aladaasi marka wax way cilmiyan iyo sharcan ani siyaasi wareersan kama hadlayo dadweyne la wareeriyay oo muxuu ahay aan caadifa hayso kama hadlayo laakiin ninka shariicadu xiri karto oo diintu xiri karto
وقال الله يقال الرسول يحقق أمد مرتي يحقق مصلحته كجرتا نينك غرانيا نينكاسنا نيغا الله هدليا وانا سيدان هذا كو بلاابay dalkani hadii la yiraahdo hal kala dhaqaaqo waa hal kala dhaqaaqo hadii la yiraahdana waad garanaysaa meesha lagu dambeey doono nin walba waa garanay waa iska cad ma la dhihi karaa su'aashan ku gabagabeynay ma la dhihi karaa caalamul islaami waa qaybsan yahay annaga inaan iska qaybsano maxaa mushkilo ku jirta jawaabtu waa may laana caalamul islaami qaybsanaantiisu waa khaladna cid lagu ma raaco khalad cid ay ku jirtana daliil ma aha sheekh dawladii oo dhan baa qaybsanay annaga haddaan qaybsano maxaa dhibka haddaan goono waa la kala go'ay daliil ma aha awoodaada adiga raac laakiin nin baa khalad sameeyay anuguna waan sameynaya daliil ma aha in dadku ay isku dhacaan dadka muslimiinta ee walaalaha ee wada dhashay ee wada degan muslimiinta inay islaayaan oo dhiigu daato oo ay isku mashaqoobaan ma keeni kartaa inay kala go'aan waan islaynay oo waana la laayo waa isku baabaanayo aw ma nasu reebanino hadda aan kala soconno masuurta galba maya asxaab rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ba midaal inoogu filan reesham oo muaawiya hogaaminayo iyo muslimiintii kale oo ali ibn abi talib hogaaminayo muddo dagaal baa dhex socday waa la isku riiqmay umada dhan baa ku baabacay haddana marnaba nin culimada kamid iyo saxaabada ma soo jeedinin warnimayo reesham oo goonidiin u gaa dagaalku ah inaga istaagay baaba'anay shaamayna muaawiya u go ali oo intaada kale iska maamulo saxaabadii islaay iyo dagaalay dhacay iyo dhiigii daatay dhulka muslimiintu mid ahaada la taagnaa Soomaaliya masalada xigtay waxay tahay dadka muslimiinta waligood waa istili jireen dhiigu waa daadan ila qiyaam saacada uu daadan doona sida nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam laakiin dadkan isdilay waa walaalo kala gumaaday iyo ka wax gumaaday haday muslimiin iimaanka walaalayay ayagoo isdilayay muuminiin wa in taa'ifatan min almu'minina iqtatalu laba kooxood oo muuminiina haday islaayaan muuminiin waay maxaa laga dambeeyay aayada ka dambaysa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum ayagoo isdilayay walaalayay faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf ki addishay ee dhiigiisa daadisay ya ayaa waxa lagu yiri waa walaalka quraanka sheegay waa walaalka adoo dilay waa walaalkaaye yaa idin walaalayay diinta idin walaalaysa ummadda Soomaaliyeed diin baa walaalaysa Soomaa dal baa walaalayay dhaqan baa walaalayay abtir baa walaalayay luuqad baa walaalaysay dhinac walba walaalakay hadday wax dhex mareen oo dhibaato isu geysteen kulli way isu geysanayaan ilaa hadday socotaay kii shalay loo geystay baa maanta geysanaya ka maanta loo geysanaya baribu geysanaya fitanku markay kacaan cidina ma fayooba laakiin in bulshadii muslimka ahayd ee isjeclayd ee walaalaha ahayd ee isla noolayd ee diintu walaalaysay in lagu kala gooyo oo mar walba la karaaco qodobka ah waad istilay waa la islalay kana lagu sameeyay saan isku sameeynay kana sameeynay oo siyaasiyiin barnaamijkaasi ay garaacaan oo ka faa'iideystaan arrinkaasi waa arrin halis waana mid keenaysa bulshadu inay si kala fogaato waa mid keenaysa in la yiraahdo Soomaali yahuud baa naga xigta wala abuurahay وعلى أبوره دوري صدّن سنة على أبوره ومدة اللي كان يسئل اللي هذا صومالي حلبان هاي ومضاها كلا نجحك لأن سياسيين بأبوري وهو مدلل بسلينه سياسي بسوء وشديد سوء قالوا ضد كان كذا عن وعي على هنا بالشدة وإنه عبيو وإنه كجرو وإنه آخريو وإنه ملك حلو وإنه مركز كده دنتي سكوا قالوا أنتوا أنت كم بدنا وإلا شرعا شرع عقبت متشر تضد كان وضد ولا عليه حتى دبات دحمرتي دباتده ما كيني كرتو إن دل كودي لك الجوي دباتده دحمرتي ما كيني كرتو إن أيجي لسكدرو دباتده دحمرتي ما كيني كرتو إن للسوق ضدايو دباتده دحمرتي ما كيني كرتو إنت يجو كلا تجان إني قال يشي شيء وقال أبدا أبدا
wax diin iyo caqli iyo sharci uu qabo ma arrinkaasi marka caawa halka aan ku ekayno waa masalada qaybteedii hore ahayd shariicadu maxay ka qabtaa dhul muslima in la kala gooyo oo laba dawladood iyo laba madaxa loo kala sameeyo maxay ka qabtaa shariicadu islaamku waxyaalaha ina hayase sabab iyo mumarrid ma u noqon karaa in dulka la kala gooyo oo dawlado kala duwan loo sameeyo waxa hadda ina haystaay horay caalamku noo soo maray mase dhacday in lagu kala tegay inta caawa aan ku gabagabayno qaybteedii labaad oo inoo insha Allah taala habeen damba waxaan kaga hadli doonaa heshiiskan la sheegayay muxuu dhib keenay muxuu sadaf keenay hada billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi jazakallahu khairan sheekha waa dhaafnay salaadii laakiin khayr kale aan ku dhaafnay salaadii waa dhaafnay waqtigeedii laakiin khayr kale aan ku jirnay iyadiina waqtigeedii ma tigina waan joognaa darsigaasna qaybtiisa dambe sida sheekhu sheegay habeen dambe bacdul maghrib baynu soo imanaynaa jazakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh